aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Axmed Xuseen Warsame oo warbixintaasi inoo diyaariyay. weli waxaynu ku jirnaa barnaamijkii Hirar iyo Hargeysa. waxaana barnaamijka toddobaadkan marti noogu ah nin ka mid ah ragga ugu caansan guud ahaanba Somaliland iyo meelo kale oo badan oo ka tirsan mandaqada Geeska Afrika. waa Shucayb Xasan Ducaale oo dad fara badan ay yaqaanaan. Shucayb studio Universal TV ee magaalada Hargeysa ayuu noogu yimid. waraysigii aan la yeeshayna waxa uu dhacay sidan. Shucayb Xasan Ducaale aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay inaad nagala soo qayb gasho barnaamijkan Hirar iyo Hargeysa. ku soo dhawo barnaamijka. aad baad ugu mahadsantahay idinka laftigiin inaan meeshan caawa aan idinkala qayb galo xafladan ee meeshan markaa way Shucayb waxaad ka mid tahay ragga ugu caansan magaalada Hargeysa. bal haddayntaynaan waayadan dambe iyo soo gelin xagebaad ku dhalatay adigu? anigu waxaan ku dhashay Ceergaabo. waatay taariikhdeeda dhalatay waxaan cid kale laakiin u sheegi maayo ogow labadeenu baynu ugu koobnaanaysaa. iska caadi haddaad macal cid u sheegtay iska caadi. haya 1976 baan dhashay. 1976 waa 1976 laba kaliya waxaan u malaynayaa ka reebtay. may شوك كمان ريبن سعاديا طريقك وش way waxaad ka mid tahay ragga ugu caansan magaalada Hargeysa. caannimadu Shucaybo wax dhibaato horta ma leedahay? caannimadu in qofku caan noqdo horta haddaad maqashid kelmadan caan dhibaatana way leedahay wax weyn way soo kordhin kartaa. way dhibaatada aynu ka horeyno maxaa dhibaato ay leedahay? horta anigu haddaan anigu kaaga sheekeeyo tayda haddaan anigu tayda kaaga sheekeeyo ilin sida Cabdisalaan Herri oo kale nin dheer ma hiye ya ninkaaba wax ciyaal iyo iskuulla igu sara wixii kale moogtahay inayba waxaad iga jeedaa ciyaal iyo iskuulla igu sara wixii kale inay dilaan ma aniga ciyaal ilin ma fahmayaan ma garanaysaa inaan anigu nin weynahay inaan caynkanahay ma garanayaane iyo waxay ii arkayaan nin yar bay arkayaan dadna haddii dee markaa af Soomaali ubaan kaga baxaaye ya si kale kagama bixi kare af Soomaali ubaan kaga baxaaye Shucaybo way taas waa xaggii dhibaatada ama qofka waxyaabaha u keenta caannimadu ee maaragtay wanaagsaneyn maxaa faa'iido leedahay caannimadu? caannimadu horta wax aad u fara badan bay leedahay waxaa aadka u fara badan waxaa ka mid ah qof la garanayo markaad tahay waxaa ku uri meel allaale iyo meel lagaa joojinaya ma jirto. caannimada kama tahay moogta adigu laakiin caannimadii waxaad ku darsatay Hargeysa kaliya caan kama tiid saan ka warhayo. Djibouti baad tagtay, Nairobi baad tagtay, Ethiopia tagtay, marka hadda gobolka oo dhan baad caan ka tahay marka meel lagaa joojiyaa ma jirto miya? adigu waxaa ku leen meelaha lagaa garanayaa caan ka noqon kartaa laakiin meelaha lagaa garanayo caan kama noqon karto. imaka Djibouti oo kale aad baanu Djibouti isu dhex galnay aad baanu saaxiibo noqonay aad baanu magana Nairobi oo kale sidaas oo kale Ethiopia oo kale sidaas oo kale laakiin meel aan lagaa garanayn caan kama noqon karto. Shucayb waxaad ii sheegtay in mararka qaarkood dhibaato ay kala kulanto ciyaalka oo kale oo dee ilmo yar kuu qaata maxaa kuugu darnaa dhibaatooyin ka hor yimid kale? horta Cabdisalaan dhibaatooyinku ma yara oo dhibaatooyin fara badan way soo mareen waxa ku leen
adigu waa aragnimo wax kaga baxay way mid yar laba hadda ma sheeg Shucayb dibaatada aha Ethiopian bari aan joogay Ethiopia magaaladeeda joogtay adsawa way tabana ismaan oqoonte sidaa dee ismaan wax kale markaa way markii ugu horreysay bay aadaan feras wala tagay baa hadba Ethiopia ana markaad macal dadka aad afgaranaysid ayay bay dhaantaaye dad aanaad afgaranayno waxaan ku yidhi dana ku soo weeraraya way si ku soo weeraraya wada adigu halkaasoo kalaad iska lugeynaysayo intanaad tagsiga gaadhayso ayaa wax ku yidhi 500 oo kun oo qof ayaa gida iskuulka ka yimid ayaa ku imaday dee haye marka wala afgaranaysid oo kuwa halkan de waxaa kaga baxa hadal kuwana hadal bad kaga bixi kartaa dee af Soomaaliga way kulayaan waaradan haynu ciyaarnaa dalosa abo kaadi ma door kartaa wate way kuwa de maxaad kaga baxaysaa waatay markaa waxaan ku yidhi adigu af Soomaaliyaad kaga bixi karaysaana ma jiro waayo waxaan af Soomaaliya uga baxayn ma garanayaan baa af Soomaaliga de waa runa marka ana maxabashiga ma noqon way Shucaybow haddii mid kale aan ku weydiiyo waxaad iga sheekaysay maalin roob da'ay oo dabadeedna meel ereylada aad ka baqatay inaad ka talowdid oo gabadhideedna ay ku xambaartay bal hadda sheekada nooga dhaca annaga iyo daawadayaasha adigu sheekadaasi waxaan ku yidhi sheekada weyn bay ahayd way sheekada weyn ayay ahaydoo markaa intaan anigu markaa soo qaylo intaan soo qaylay markaa systemkii aan meesha kaga talaabayay ayaan programming anigu way leelad markaa biyo mareena waxyaroo dee biyo mareena de anigu markaa waxaan systemkaan meesha kaga talaabayay ayaan hawshiisa wadayday gabadhiina markaa waxay istiriyeen ilmahan yar meesha ka tallaabi dee markaas meesha iga tallaabinaysay way ku qaaday markaa way qaaday daneynta qaadaya meesha iga tallaabinaysay ayaan dee markaa inan bay hadee oo udiiramayd da iga tallaabisay meeshii inantii adigu waxba adigu ma garanaysa waxay ku garatay inaad dee ilmo yar ahayn miya markii dib ma fahamtay oo maxay samaysay deedna mayadu iyadu wax badan marka hore ma sameynaa anaa wax samey dada inantii adigu way fahamtay baan ku inaan nin yar ahayn oo dee nin weyn ahayn markaas adigu dee waxbaa ka dhacay baan ku yidhi maxay samaysay markaa ma dhulkay ku dhigtay mayadu may way tuurtayba waatay laakiin ilaahay waxba kuguma yeelin waxba ma noqon iska caadigan Shucayb oo asxaabtaada faraha badan leh adduunyada kala joogta
kuwa waliba Yurub iyo Mareykan jooga xilli aad u qaboobaa bay ku jiraan iyaad ka salaami lahayd bal inay ku diirsadaan salaanta anigu horta cid allaaliya cidii igaranaysa horta waan salaamayaa dhammaantood meel allaaliya meel ay kala joogaanba waan salaamayaa gaar ahaan waxaan salaamayaa ninka la yidhaahdo xuseen bisad xuseen masaaxiib baatiin ninka la yidhaahdo maxamuud cumar yare fuwaad cumar yare مريم مرسل سهرة أحمد جامع أصحاب توردن وسلامة waxaan hubaa asxaabtaada faraha badan laga gayoon maayo laakiin haddaan si gaar ah ku weydiiyo Xuseen Bisad Xuseen masaaxiibatiin adiga waa tay Xuseen saaxiibkay way hadba saaxiib la Xuseen Hargeysa markuu yimaado kala ma israacnaa Shucaybo way israacnaayo adu Xuseen saaxiibkay isaguna hay waa nin aad u dheer adiguna waxa tahay nin aad u gaaban marka sheekaysanaysan oo kale ma mobile-ka ku wada hadashaa waxaan ku dadku waxaan ku system lagu wada hadla lama waayo way system lagu wada hadlo hay lama waayo waa hagaag Shucayb Xasan Ducaale aad iyo aad u mahadsantahay sida ay dad fara badan